الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. maanta oo taariikhdu tahay 12 bishii 8 2018 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun dil ah. taariikhdu markay ahayd 9 bishii 8 2018 saacaduna ahayd 10 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysane gacan ku dhiile dable madani xasan raage xasan oo loo yaqaan xasan mooro ina makay raage isaaq 58 jir ah ku dhashay degan bardaale ka tirsan ciidanka madaniga degmada bardaale kaasoo xafiiska xirlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si bareer ah oo uu kaca u dilay taariikhdu markay 2 bishii 2018 marxuum la oran jiray Ali Maxamed Ali Booray ina dahabo mayo 59 jir ah kadib markii uu hal xabo AK47 ah oo hal shucaa ah kaga dhuftay madaxa isla goobtiina uu ku geeriyooday marxuumka dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii uu soo gudbiyay xirlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda 178 suuratul baqara iyo aayadaha 30 iyo 43 suuratul maa'ida iyo qodobka 434 xeerka iqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19 xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysanaha looga horqoray xafiiska garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad uuna ku qirtay in uu marxuumka asagu dilay kuna dhuftay hal xabo AK47 kagana dhuftay madaxa goobtiina uu ku geeriyooday markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda horteeda midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda ka cadeeyeen in marxuum Ali Maxamed Ali Booray uu si ulukaca oo bareer ah u dilay eedeysane xasan raage xasan mooro isla markaana uu madaxa kaga dhuftay hal xabo AK47 isla markiina uu geeriyooday marxuumka markay aragtay qoraalka dacwadda lidka ku eedeysanaha oo ay soo qorteen ehelada marxuumka markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeey sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dembiile gacan ku dhiile dable madani xasan raage xasan oo loo yaqaan xasan mooro uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo ogay waxaana ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Ali Maxamed Ali Booray cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan وبالله التوفيق قدوميها محكمة عيدمة قلب سيدا قيبت اللحظانات وعشان لديها آذن أبوكر محمد